waa beertida hore jirta waata hore u soo xidhan beertida waa soo xidhan biyo mar hore soo dhaafeen bere shalay soo dhaafeen biyo waa gartay beertan waxa iskale dawaalan liira iskale dawaalan waa gartay adeer dawaale marka beertiisa hadda waa u jeednaa biyi taagan bari kalan waa soo dhaafinaad waa meel tacba maatan meel iska weyn tan tacba mid kala tacba mid ka horeysa taban tanayda macna lama tabic sanadkan anugteedu waa kasii horeysa shalay soo dhaafay shalay waa biyo ku bariyeen de waa ka soo holeelo bar hore ka soo tag waa ka soo tagaan maxaa u baaqaysaa mas'uuliyiinta dawladda naga soo gaara dad islaam hadaatiin mas'uuliyiinteena ayaa tihiin naga soo gaara idan leenahay naga soo gaara sida degdega nooga soo gaara halkan dhibaata ka jirta naga soo gaara aada u mahadsantahay waa nabadoonada ka mid ah oo degta Elyaasir oo dhaqameedkii weeye marka alxamdulillaah waa dhibkan ay ku jiraan biyihii waa halkan ay ku xarxarayaan loorarkii waa idin tusaynaa waxyaalada halkan ku bilaabanaa waa kana loorarka ay saareen darab ma haystaan hadday kale garab ma haystaan maanta dhan way tacaalayaan loorarkaas ciidanka laga soo qaaday sidii wax loo helo waxa loo dhigaa marka alxamdulillaah maanta dhalinyarada shaqadaas mid ka mid ah wareyseenaa guddiga dhalinyarada ay hadal maxaa ku baaqaysaa mas'uuliyiintaada dhibka u jeedno dhibka waa u jeedin waa mas'uuliyiinta waxa uu baaqaa inay caawin noo geystaan oo waxaan wax alaal wixii awoodooda inay si ay noo soo gaarna uu baaqeen maanta beertaada intee waay beertayda waa intee ku jirtaa waa gartay khasaare intee laga ku gaartay wallaahi waxaa ka korna maaha inta khasaaro dhib gaartay waxaa tirko korma ilaaha nala alxamdulillaah ilaaha ku mahadayna marka shaqadan neeq maalmood aa wadiin sida arkayno loorar badan aan dhigan wallaahi 8 bari iyo 8 habeen iyo maalin 8 habeen wadnaa intii hadda awoodayna oo sileeyna la ogyahay waa ilaahan uu garabsiyaa waa horrogna alxamdulillaah aada u mahadsantahay dhalinyarada kalena waa maasha Allah shaqada aa wadiin waa mid aad iyo aad ummadda Soomaaliya u caawinaysaan oo naftiina u horeysaan maanta dhan meesha u taagnaadeen midaan aad idinka mahad celinayna si wada laba jibaara dawladda mas'uuliyiintiin waa insha Allah way idin soo gaarayaan warkan meel la insha Allah